xaafaddani waxay taariikh aad iyo aad u fac weyn ku leedahay dadkii ama carabta ahaa ama soomaalida ahaa muddo ka badan 100 sanadood ka hor u soo haajiray waddankan Hindiya tafiirtoodii ayaa xaafadan aad si weyn ugu arkaysaa iyadoo raadkii taariikhdana ay wax ka sii jiraan oo tusaale ahaan yamanidoo kale ama soomaalida dadka tafiirtooda ay tahay ay macawuusi xidhan yihiin luqadihii ayaa aad iyo aad ay isugu liitaan laakiin dadka intooda waaweyn ayaa taariikhdii wax ka haya guriga nimankan gelayo waxaa ku nool nin la yidhaha xuseen Soomaali oo xaafadan aad caan uga ah wuxuu ii sheegay in tafiirtiisu ilaa 100 qof iminka ay ka badan yihiin xuseen awowgii ayaa waqti uu ku qiyaasayay ilaa 1890kii yimi waddankan Hindiya xuseen bal hadda dhaqankii Soomaalida wuxuu ka hayo ayaan ka wareysan doonaa iyo waxa uu ka yaqaano laakiin arrinta kale cajiibkii waxa weeye in xuseen uu noo kala turjumayo maadaama Soomaaligiisu aad iyo aad u liito nin isaga asalkiisu uu Hindi yahay asalkiisu markaan leeyahay Hindi yahay aabihii waa Hindi Shakiib Cabdi Jabbaar baa la yiraahdaa aabaha iyo aabihii bank Hargeysa ka wada shaqeyn jireen Shakiib hooyadiina waa Yamaniyad Shakiib ilaa dugsiga sare waxa uu ku dhameystay magaalada Hargeysa dabadeedna wuxuu isku tilmaamay isagu inuu Soomaali yahay Shakiib baa noo kala turjumaya bal hadda xuseen waxa taariikhdii uu ka hayaan eegno waa guriga xuseen uu degan yahay bal hadda xuseen baan arrimaha aan idin sheegay kala sheekaysanayna السلام عليكم حسين سكورن سمو wanaagsaneed حسين aniga Cabdisalaam Herri baa la yiraahdaa television universal la yiraahdaa ayaan ka shaqeeyaa af Soomaaliga ma taqaanaa ninkan waa ninkaan idin sheegay Shakiib Cabdi Jabbaar walaal Shakiib iska waran soo wanaagsanay khayr weey sheekadeenna iska bilaabanaa aan fadhiisano guriga waxa degan Xuseen iyo qoyskiisa qaar kamid ah Xuseen waxaad ku tahay Shakiibow aad iyo aad baad u mahadsan tahay in gurigaaga aad nagu marti qaaday आपको बोलते बहुत बहुत शुक्रिया आपके घर में हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया और चाय पिला दिया और ये भी खाना भी है तो खुले ये है उनतन हो गए तुम पैसा aad iyo aad baad u mahadsantahay बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए wax weyn noo ma aha naga waayo mid naga mid ah ayaa tahay Soomaaliyeed oo na soo booqday af Soomaaliga Xuseen muxuu ka yaqaanaa horta magaciisu waa Xuseen Soomaali oo xaafadoo dhan uu caan kaga yahay af Soomaaliga muxuu ka yaqaanaa आपको बताएं आप मशहूर आदमी हैं पूरे दुनिया आपको जानती है नाम से लेकिन कोई नहीं जानती कौन है हुसैन सोमाली आप सोमाली लैंग्वेज से कहा जानता है सोमाली लैंग्वेज में कहा जानता है आप iskawar nabad wariya fadhiisu magaca inta uu sheegay ayuu ka yaqaan af Soomaaliga taariikhdii familygooda iyo goortii halka yimaadeen ha inooga sheekeeyo आपके मालूम है कुछ अब देश में जो आपके दादा यहाँ आया और 1965 में आया 1865 के ayuu awowgii soo galay waa 1865kii ayuu ugu yimid हाँ वक़्त xaguu ka yimid किधर से आया दादा नूर अहमद मगन जो है तो बरबरा मुल्क सोमाल बरबरा gatiitaley ayuu ka soo jeedaa buu yidhi berberow ka soo dhoofay awowga maxaa la odhan jiray आपके दादा का नाम क्या था नूर अहमद मगन nuur axmed magan marka sababtu halkan u yimi maxay ahayd क्या सबब था तुम्हारा दादा को इधर आने के लिए इंडिया में यानी ब्रिटिश का दौर था जब और जो निजाम गवर्नमेंट था इधर यहाँ पे सब सोमाली यमनी सब आते थे जेश में थे हाँ كل هاوجي وضعها آرمي सोमाली दिगना वागी ब्रिटिश का ताशा के लिए वाया हक बकरतोये है هاي dalbatay ciidamada ayuu ka mid ahaa meelaha kale ciidamadu ka yimaadeen waqtiga और किधर से दूसरा हम सोमालिया की तरफ से और किधर आए इधर यहाँ पर हाँ यहाँ पे मजरतन आए डुलबहंती आए थोड़े वर्संगली आए
और खबर जालू है, खबर जालू वहाँ पे भी है, इसी गार्ड में है. كل هاي ميلو كل دوون أو قبائل كل دوون بايمي ها حافظ كله نيجي بوي ولا دينتين من تشوفن عروض ولا شوكتا أون يجوا هدا أب سومالي جرنين أو قبيلة اللي جرنين هذا اسمه مقعبة هندي لكن حافظ لي ده أي سيجار واحد ده ميت كيلو يسمونه الصومالية قبائل كل شيء لكن دتك سايكتر سراين ها مشارتين ورسنجلي والبهانته ورسنجلي भी आए थे और खबर जालो भी है, خبر شعله كله واحد صدوم وجي مادين لكن their grandfathers they pass away but this new generation they don't know about the tribes and that ones jiilasha cusub wuxuu yidhi dadkaasi ay ka tageen iminka ma yaqaanaan halkay ka soo jeedaan laakiin intii waaweyneyd ayuunbaa taqaana dabeedna awowga imise qofku ka tegay de आपके दादा जब इधर आया हाँ कितना छोड़ दिए चले गए इसको आप लोग को कितना आदमी लगता है आपको फैमिली से खानदान से ये हमारा जो है बाप था हसन, बाकी सब मर गए थे. हसन की औलाद हमें मोहम्मद अहमद हुसैन. अहमद मर गया, मोहम्मद है, हुसैन दो है. انت كتير اوغي imise qof يا waxaan hayn la shaqo qof way sheegay मेरी औलाद ها يقول لي انا كنا اولادكيgu waxa weyn waa 8 boys and 3 girls waa 8 wiil iyo 3 gabdhood afid kutra badri all makan anigu waxaga ku tiriyo waxaga makan ku tiriyo iyo inta intu dhalay iyo intii sii dhaleen ilaa waxaan nahay 45 qof kutra badri ما شاء الله ما شاء الله 100 waxaad ku tiraahdaa waxa la ii sheegay isagu inuu abtirsiimadiisa yaqaano का इनको बोले मिस्टर हुसैन मशहूर है और मशहूर से भी ज्यादा इसको आता है इसकी दादा की दादा की नाम वो हमको बता सकता है bal noo sheeg dheh हुसैन हसन सईद नूर अहमद मगन समक्काब रोबले अबार उगाट उमर उमर अब्दुल्ला इस्माइल आर्रे सईद गरहजिद हबरनूर उगाट उमर रेर हारून अहमद. ما شاء الله ما شاء الله وحي دو ودا هيا sidoo ku bartay de अब जब आपने यहाँ पैदा हो गया और इतने पूरे नाम कैसे मालूम पड़ा आपको हमारा बाप माय फादर हाँ aabahay ayaa nooga sheekeyn jiray oo noo sheegi jiray waxyaalaha isagu ma tegay de Soomaaliya आपने सोमालिया कभी भी किसी दिन गया सोमालिया नहीं गया मैं टिकट दो बच्चे गए थे मेरे laakiin labada caruur ugu waaweyn Abdullah iyo Abubakar ayaa hargeysa tagay waxaanay la dagaayeen ilmo falaax महमूद डेरे से मिले वहाँ पे उगाड़ उमर शेख महमूद डेरे उगाड़ उमर kana way la kulmeen buu उसका वाइफ बल्दिया में काम करता waxa la ii sheegay de in hablihiisa qaarkood ay Soomaali ka guursatay वो क्या बोलते हैं मैं सुना आपकी बेटी लोग भी सोमाली से शादी हो गया. हाँ सोमालिया एक जो दो बच्चियाँ इसाक से करा एक अब्दियार जो लंदन में है लंदन का पासपोर्ट है उसका बरतानिया का और एक बिल्किस है वो जो है रबी फल्ला कनाडा में उससे एक बच्ची हमारी ये यमनी देती है saddex gabdhood midna yamani baa qaba midna rabiic fallaax baa qaba midna london bay degan tahay cabdiar cabdiar saaxiib baan ku dheh वो बोलते हैं cabdiar तुम्हारा बेटी का बड़े है मैं मेरा दोस्त है shkiwa waxa aad weydiisaa dawladda hoose doorashooyinku isu taagay axsaabtu ka tirsan yahay meel la doortay isaga marna जो इलेक्शन आती है आप हमेशा खेलते हैं इसके लिए क्या लोकल गवर्नमेंट है या कौन से पार्टी है स्टेट गवर्नमेंट waa state government waa okay maamulka gobolka yani television party Chandrababu Naidu waxa way inta aanay kala baxin Hyderabad waxa loo jiray Andhra Pradesh laakiin hadda way madax banaanaatay waxa la baxday Telangana state intaana Telangana state ayuu xukuumadda qayb ku lahaa cod ku lahaa laba jeerna wuu soo bandhigay laba jeerna kumunu guulaysan waxaad weydiisaa kale waxaa la ii sheegay in dadka asalkoodu Soomaalida yahay inay jiraan qaar kale oo meelo sare dawladda ka gaadhay वो क्या बोलते हैं जितना आप लोग सोमाली में है यहाँ ये है और सोमाली लोग जैसा
कमिश्नर ऑफिस बन गए, बड़े बड़े ऑफिसर से है हैदराबाद में। एक जो है खबर अव्वल है साद मूसा, उसका कबीला है, वो जो है इब्राहिम, उसका मूसा इब्राहिम है, मूसा इब्राहिम। मूसा इब्राहिम। वो जो है दूसरा और एक भाई उसका जो है वो सईद इब्राहिम DCP है, DCP पुलिस को नकदै मदह नकदै हैदराबाद। और दूसरा अहमद हसन फारा जो है वो रिटायर होगा, बुढ़ा होगा, अहमद हसन फारा वो भी DCP था। इसे को ना DCP पुलिस का, हाँ इसे को ना DC पुलिस का ये वहाँ। waxaad tiraa sidan uu isagu imika u yaqaano xuseen oo magaciisa xuseen Soomaali yahay, caruurtiisu ma u yaqaanaan halku ka soo jeedo? जैसा आपको आपके कबीला मालूम है, आपकी सोमाली का लैंड मालूम है, ये सब मालूम है, आपके बच्चों को इतना कहा मालूम है? हाँ मेरे बच्चों के बच्चों को पोतरों को मालूम, पोतरी जो है खुदन नाम है उसका, उसके लिए बुलबुल बोलती पूरे कबाइलों में। وكل عروت إذا كسكو عروت تسيد لهم أي سيا خان وعلا هي إنت تسيد الشيء أي دي بدها وقصة كسان वो खुदन छोटी बच्ची है, वहाँ वही नंबर कितने साल की है वो? होंगे 11 साल 10 वाह खूब से बंशीर वैयान दि بدها هم تقول بعد أي عروت كلا وقفانتا أنا وحنا هاي so ما شاء الله. ma jeclaan lahaa inuu tago gatiitaley? आपको कोशिश आती है और जाने के लिए गतितले विजिटिंग के लिए सोमालिया इंशाल्लाह जाएंगे, हमारा मुल्क है क्या बात इंशाल्लाह waan ku tala jirnaa waayo waa meel aan ka soo tafarrucnay. ilmaha yarna waxaa la ii sheegay inuu awoow yahay oo inantiisu ay dhashay. ये बच्चा आपके बेटे की है नहीं बेटे का है, पोतरा। इनकीसा डाला है। हाँ नाम बोलो तुम्हारा? नाम बोलो बेटा। हाँ शुएब मूसा सोमाली। शुएब मूसा सोमाली। माशाअल्लाह फरीद शुएब मूसा सोमाली इसको लोग garanaya? हाँ वो garanaya कबील किसी के हाँ वो डिगा सीधी इसका लोगो डिगाई अयो इसका ना बोलो खलीला तुम्हारा बोलो शेख बनी साहब खबर यूनुस हारून अहमद माशाअल्लाह waxaan jeclay intaynaan sheekada ka bixin isagoo xuseen aad iyo aad u mahadsan, bal hadda shakiib qudhiisa inaynu ka yara sheekaysiino. shakiib sidaan idiin sheegay aabbihii asliyan wuxuu ka soo jeedaa waddanka Hindiya, hooyadiina yamaniyad bay ahayd oo yaman bay ka soo jeedaa. shakiib isagu wuxuu isku tilmaamay inuu yidhi Soomaaliya waana yahay. shakiib isku xaafad baan ku dhalanay sidii furitaankii barnaamijkan idinku sheegay. shakiib aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in mar kale Hyderabad aan ku kulanno. shakiibow maystirida adduunyadan aadka isugu furmaysa adigaaba tusaale oo ah Hindi iyo Yamani iyo Soomaali. والله run ahaantii aad waxaan ugu faraxsanahay aniga oo walaalkeen 35 sano oon kala maqnaan oo maanta isgarab fadhino. Cabdisalaam waxaan kaga soo tagay isagoo maxaan miishaga isagoo 9 jira, maantana waa adiga ka waxaad mooysaa inaan ka yarahay. orwa dadkiina garanayay muddo intee lag halka deganaaday markii shaqada? waxaan deganaa 35 sano. 35 sano sideen ka soo baxay Soomaaliya. markii aad timi adigu afindiga ma ku hadli jirtay? waan ku hadli jiray afindiga Soomaaliya waan ku wada hadli jiray. gartay marka wax dhibaato kalamaad kulmeen inaad halkan la qabto? inkastoo ay Soomaalidu ku yaree يا هبين كي بان سكيه تشري هاي isla hadli jiray anaa isla hadli jiray Soomaaliga saan u duubin هاي دايما كل soo batay marka aad waxaad ii sheegtaa markii Soomaalidu halkan markii aad halkan tibay ugu horeysay shakiibo maxaa kuugu daraa xagga la qabsiga maadaama ahayd markii ugu horeysay xaggan timaado? wallaahi walaalkayow gelin waddankiisa ku soo laabtay waxaan dhibaato la kulmay ma jirin, laakiin Soomaalidii markii yimaadeen ayaan dhibaato kala kulmay. qaar caaya waa tahay saku caaya qaar ilaa ana doonan jiray هاي marka muuqaalkaagana Soomaali ku moodayay markaasaan wana aad ugu saan odayga Hindiga
haya haya waxyaalo badan oo ka sheegi karan xaggan dabadeedna marka dambe ay ogaadaan inaad nin Soomaali tahay ogaadaan un bay alla hada naga raalino haya 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 waxaad ka warantaa imika adigu gabadh hindiyada waad guursatay ما شاء الله لبا caruur baad leedahay adigu kuwad dhashay sida kuwan Xuseen awoogu yahay ama uu dhalay ma yaqaanaan inaad Soomaaliya ka soo jeediyo Soomaaliya way garanayaan ka soo horjeedo ee waxana yaqaanaan ay iska waran nabad inta inta soo meekanayaan haya 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 waqtiga aan kula hadlaa Soomaaliga ayaan jirin gartay ki baan jirin waa school tuition quraanki bay ku wada bixiyeen ayaan ka haddana ya around the children ayay isku yimaadaan xaafadda